wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Somaliland Warsame Siciid Cabdi iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maalmahan dambe waxay socdaal howleed ku joogeen goboladan Awdal iyo Salel waxayna ku indhaynayaan howlaha dakhliga ee goboladan. wasiir ku-xigeenka maaliyadda Somaliland ayaa maanta waxa uu shir saxaafadda ugu qabtay magaaladan Boorama wuxuuna kaga hadlay ujeedada socdaalkiisan Boorama iyo waxyaabihii ay kala soo kulmeen kormeerka howleed ay goboladan yimaadeen. حاجة ما أعرف كسر دونه قلبتك الحمد لله بحر مسي ونكسب من أول ماتي مهمة دي الحياة كل ما يقول هو دي دلك ما أعرف أنا قبلنا قصرين إنه قلبت السنة اللي يعوض متقارب وزارة أنا كنت السنة وزارة دي والدورتي دولة وهذه دخل كسحروني مركز سانو دخلي كانوا قادستي والله مقابلين والله كنت نبري هذا وكل بلادنا صار ضعفي ولا ساعتان سنة في هري سنة كان تحويل بورد حيامات تخلق مارك وزارة الصوغرة هذا الدولة دولن وارس ودارنك القبس ما عملنا هاي والشقاي ما عملنا هاي آدي أطبع نوار وهم هذا علمنا يمكن قدام بيسمير كيما هذا يقدميه برصار في بورد يقالوا كل ما الله يرني waxaa sidoo kale wasiirkaynu wax ka weydiinay cabashooyinka dhanka socdaalka ah ee ka soo yeeraya xadka ay wadaagaan Somaliland iyo Djibouti gaar ahaan magaalada Lowyacado. marka xadkeena soo galo sharciga Somaliland baa lagu qaadaya haday tahay immigration-ka haday tahay xisoo dejinta badeecada haday tahay wixii inaga doofaya ama xoolaha noqoto ama han noqoto waxyaabo kale sharci badan leeyahay nidaam badan inuu raacdo marka dadka xabashadoodu waa wax badan ma salaamay hageysana qaar baan isku aragnay xaqana qaar baan aan la kulanay intii wax caadi oo dalku ah aan nidaamkaas u raacay aan ahayn intii marka la kulgalay ma jirto dadkeenu waa ogtihiin oo dad wanaagsan asay xabashadoodu kulli waa mid iska taagan mar walba. Cabdi Fataax Ahmed Somali Channel magaalada Boorama.